wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirada saaxiibada ah, wasiirka dhalinyarada dowladda Jubbaland, agaasimayaasha iyo khayraadka kale waa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan rabaa wax badan inaan ku daro mar raba, laakiin laba qodob aan rabaa inaan ku daro. Mid waa ku raacsanahay wasiirada saaxiibada ah in awoodda la saaro qiimo iyo mugna loo yeelo meelaha la xoreeyo. waa wax wanaagsan ididiiladeena leh mudanna in kor loo qaado. laakiin aniga barnaamijkan fahamka aan ka haysto waxaan u qaatay barnaamij la rabo national qaran ahaan in looga wada tashto, maadaama uu qaran yahay. haddii baydhabo lagu qabto iyo haddii beledweyne lagu qabto iyo haddii kismaayo lagu qabto iyo haddii dhuusamareeb lagu qabto, waxaan u malaynayaa kasoo qaybgalayaasha markaad fiiris meeshii la xoreeyey mararka qaar inaysan u saamaxaynin xaaladaha waddanka ka jira awgeed. intaa kadib waxaan kaloo u fahmay inuu yahay waxaan galnay dibi xoreyn. maadaama aan dibi xoreyn galnay, dhul badanna qabsannay, wixii aan filayno akhyaarta international partnerska aan ka filaynayna aanaan sidii la rabay u helin, dowladdiina markii hore ee hawsha la galayayna qorshe cad aysan ahayn, waxaan u fahmay in gadaal inta u degno aan isweydiino war maxaa noo qabsoomay, maxaa noo qabsoomi waayey, maxayse noogu qabsoomi waayeen. marka waxaan u fahmay shir ah retreat camal inaan fiirino maxaa noo qabsoomay maxaa noo qabsoomay. waxaana isleeyahay mararka qaar ma og tahay meesha uu awal hore ma og tahay soomaalida dhaqankeeda, wadaadka iyo ugaaska iyo culummada meesha ay tuftu ka bilaabato iyo waxa dhan wada hagaagaa. marka waxaan isleeyahay shirkii koowaad ugaaska in bilaabay waxba ha sharaysan waa noo wada qayraan doonaan wayna noo wada fiicnaan doontaayo meelaha waa noogu xigsan doontaa. intaa kadib waxaan rabaa mudane wasiir international partnerska iyo waxaan arabnay inaan qabanno iyo dhulka la xoreeyey, dhulka la xoreyn doonaba, iyo dhaqaalaha hadda laga hadlayo isma laha. aniga waxaan soo jeedin lahaa shirkan qodobka ugu muhiimsan inaan xoogga saarno coordinationka. waxaa igala muhiimsan inaan xoogga saarno fundraising. dhul badan oo aad u badana la xoreyn doonaa, maxaan ka qaban doonaa? awood ma u leenahay dhulkaas inaan sii haysano? sii haysashada ciidamada keliya maaha, waa booliiska agabkii dowladeed oo dhan inay dhammaystiran tahay. dhaqaalaha aan haysano iyo agabka dowladeed inay dhammaystirnaatana isma bixinayso. marka aniga waxaan xoogga saari lahaa inaan awoodda saarno see baan dhaqaalo ku heli lahayn, xaggee ka heli lahayn. dowladaheenna iyo dowladda federaalkaba dhaqaalo ma haysataa aan gaalada iyo international partnerska kula gorgortanoo dhahno dowladda intaasay haysataa, xasilinta intaasay u haysaa, adinkana maxaa u haysaan. aad iyo aad aa umahadsantiin.